kacdoonka duufaanta buluuga ah ee dhawaanahanba ka socday gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa si laba lixaadsaday iyadoo xilligan ay dhamaatay bishii barakaysan ee Ramadaan ayaa waxay soo baxyo lagaga soo horjeedo horjoogaha kooxda jeegaanta uu ka bilaabmay deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag deegaanka Damalaxagare ayaa shacabweynaha ku dhaqan muujiyeen sida ay Hiiliyahooba ula garab taagan yihiin ciidamada difaaca dawladda Puntland waxay sidoo kale shacabku digniin kama dambayso u direen horjoogaha kooxda jeegaanta Muuse Biixi Cabdi shacabka dareenkooda muujinaya ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa dad abtirsiyo nahay oo Soomaali weyn ku abtirsada waxa weeye maamulka Muuse Biixi iyo ciidda wato ma doonayno shacabka halka lagu leynayona raali kama nihin waanuna ka soo horjeedna hadaanu nahay deegaanka Damalaxagare gaar ahaan degmada Damalaxagare waanu ka soo horjeednaa anoo ku hadlayo afka odayaasha Damalaxagare waxaan u sheegayaa inta isafgarato af Soomaaliga ku hadasha iyo inta dhagaha qabta nin dhagalida waa dhagalayahay inaanu anagu nahay Puntland inaanu Soomaaliya ka siinahay inaanu ka horjeedno maamulka Soomaaliyeedka inaanu ka horjeedno Muusena waxaan leeyahay adeer laba casha balanteeni ka hadhay talo waxaan kugu leeyahay haddii aad isdhiibi lahayd iyo haddaad carari lahayd Muuse wadiyo jeegaantu tashootayay ku seegi waxaan leeyahay diig islaam anagu ma doonayno wax badan baanu abhinay wali waanu abhinaynaa waxaanu leenahay ilmadeeda ka kaca war meeshini ku noqdo warna daaya war dal nagama dhaxayo oo dad nagama dhaxayo warna daaya haday tagi waayaan oo ay diidaan laadkooda yaqaan iyo leyntooda waxaanu leenahay nimanka xunxun ee sheegaanta lagu sheegay waxaan leeyahay nimanka xunxun wuxuu yiri ka gurguray gobol Sanaag kugu soo galina ii dorgumar iyo carf lagu raalaaftaa meel jooga Soomaali waa israacday maxaa tiraahdeen ha israacdo walaa Soomaaliya ha israacdo Muuse waxa leenahay caada qaata Muuse waxa leenahay Muuse Shaari waxaanu leenahay shacabka la iyo masaakiiba iyo shacabka Muuse naga laaye waxaanu leenahay kuma doonayno oo kuma rabno oo kuma baahin dalkayaga iyo dadkayga nooga tag baan leenahay Muuse mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay intaadan ku dhiban iskaga baax gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn baanu leenahay goobtu haday caraato carigo dhan wuu gubtaa boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan hartiyo soo cartamaya hor joogsan karaa hartiyo soo cartamaya hor joogsan karaa dhanka kale shacabka deegaanka Kulaal ayaa tuuray reeriyada nidaamka jeegaanta isla markaasina isu soo baxyo noocan oo kala ah ka muujiyay deegaanka Kulaal waxaanu ka hadlaynaa Soomaaliland duulimaadka Soomaaliland ay nagu hayso dalkayaga ku soo weerartay waanu ka hadlaynaa annagoo degmada Kulaal baan duulimaad kuma niniyada nagu duulimaad doori mayno dawladeedana ma rabno doori mayno anagu Soomaaliland iyo maamulkooda toona aragoodana ma rabno maamulkoodana ma doonayno dhulkayaga ahanada waranagu waxa harti baxaanu baxnaa harti wuxuu baxaanu nahay baxnaa hadaanu nahay Kulaal anigu waxaan leeyahay anoo wax hadlaya magaalada Kulaal la yiraahdo waxaan leeyahay anagu dooni mayno sheegaanta iyo calanka yar dulka wareegaalaysanaya waxa weeye ninkii la qalay waa la furay anagu wadani baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga baanu dhimanaynaa waxaanu nahay Puntland waxaanu hoos joognaa calanka Puntland waxaanu ku dhimanaynaa calanka Puntland waxaanu nahay Soomaaliya anagu ma nihin Soomaali diidka waxaanu sheegaynaa daba dhilifka dhulka keenay wax allaale wixii dhintay inuu isagu sabab yahay oo isaga la weydiinayo naloona saarayo maxkamadda heeg naloo saarayo dan qabiil ma qabsado run baynu isu sheegaynaa qabiil ma qabsado waxaanu leenahay jeegaanta dalka aanu leenahay annagaan idin soo gelinay haddana annagu diyaar inaanu ka saaro waxaana idin sheegayaa geeri iyo nolol baanu kala kumaanta dhex joogna waanu qaadanaynaa nolol baanu qaadanaynaa waana ku dhimanaysaan xaqdarraana ku dhimanaysaan islaam haddaad tihiin dalkayaga hawlyari nooga kaca waa markaasaynu kala nabad galnaa islaam haddaad tihiin weeye wax Soomaaliya calanka Soomaaliya wixii kala goyn karaa ma uu jiro ma doonayno anagu nin khasab nagu hayo yara Soomaaliland ku noqda iyo caburin waxaanu diyaar u nahay Soomaali weyn baanu ka mid nahay ma taageersanin maamul dadban iyo mid khasaba iyo mid Soomaaliland qabiil ku cadfan ma aanu qaadanayno
yeelina mayno degmada kulaal Somaliland dadka la yiraahdo nagu soo duulay ee gobolka Sool haysta iyo degmada Xudun iyo dhulka iyaga oo dhan kaasa naga dhaxay anaga shacabkana waxaan leeyahay Soomaaliya aynu nahay Puntland baynu nahay guul aanu dalkeena ku xaraysano iskana ceelno goonistaagga dadka sheeganaya Yaasiin Cabdiraxmaan Cawad TV-ga caalamiga SBS magaalada Ceergaab xarunta gobolka Sanaag